Halkani waa saldhigga ciidamada Mareykanka ee cirka. Ninkan waxaa lagu magacaabaa Sam. Askarigan ayaa u soo galay waxa uuna u sheegayaa inuu isku diyaariyo howlgal Afghanistan ah. Isla markiiba Sam waxa uu qorayaa warqad si haddii uu dhinto uu uga tago xaaskiisa iyo ilmihiisa. Ninkan askariga ayaa u imaanaya waxaana uu leeyahay haddii aan dhinto u geey xaaskayga iyo ciyaalkaygii. Sam oo soo dhaqaaqaya waxaa imaanaya gurigiisii kadibna waxa uu waqti la qaadanayaa carruurtiisii. Waana maalintii ugu dambeysay oo uu reerkiisii la joogo. Sam waxa uu tagay saldhigga si walaalkiisa oo 3 sano xariga usoo dhamaystay uu uga soo saaray xabsiga. Kadibna xabadka ayay isgelinayaan. Waa uu soo kaxaynaya walaalkiis waxa uuna keenayaa gurigii. Xaflad casho ayaa loo sameynayaa walaalkii oo lagu magacaabo Tom. Dhammaantoodna waa ay soo dhaweynayaan. Waxaana la jooga aabihiis. Aabihii ayaa hal mar waxa uu ku oranayaa Tom, walaalkaa waa hero, waxa uu noo shaqeeyaa waddanka. Adiguna waxaa tahay alkuleysta xun sida walaalkaayo kala noqo. Laakiin waa uu xanaaqayaa Tom. Isla markiiba aabihii waa uu ka kacayaa meesha. Tom waxa uu macsalaaminayaa walaalkii waxa uuna ku leeyahay waxaan rajaynayaa inaad soo laaban doonto adoo nabad qaba. Tom waxa uu tagay Afghanistan kadibna waxa uu raacay helicopter-tan. Waxa uu duubayaa fiidiyow si uu reerkiisii ugu diro. Waxa uuna muuqaalo ka duubayaa hubka iyo taangiyada ku burburay halkan. Laakiin si lama filaan ah helicopter-tii waxa soo weeraraya ciidamada Taliban kadibna waxay ku soo dhacaysaa dhulka. Sam xaaskiisii waxay ku qubaysanaysaa waaskadan. Isla markiiba albaabka ayaa la soo qarqaraacaya kadibna Sam gabadhiisa ayaa daaqada kala hadlaysa waxayna ku leeyihiin albaabka fur. Grace isla markiiba waa soo degaysaa waxayna arkaysaa labadan askari kadibna waxay u sheegayaan in ninkeedii uu dhintay. Aad ayay u muruganaysaa ilaa ay iska oydo. Gurigiina waxaa ku timi tacsi. Carruurtiisii aad ayay walwalsan yihiin dhammaantood waxayna daawanayaan muuqaaladii ugu dambeeyay ee aabahood. Halka Sam aabihiis uu aad u murugsan yahay waxa uuna rajeynaya inuu wiilkiisi maalin u soo laabto. Grace ayaa u imaanaysa waxayna arkaysaa gabadheedii oo dhar madow gashatay way weydiinaysaa waxayna ku leedahay waa tacsida aabahay. Ciidamada Mareykanka ayaa waxay u sameynayaan tacsi waxayna xusayaan Sam waxayna muujinayaan in aad uga xun yihiin geerida ku timi Sam. Tacsidii waxa ka soo qayb galaya Sam aabihii, carruurtiisii iyo familkiisii oo dhan. Ciidamadii Taliban waxa ay qabteen Sam iyo askarigan kale ee ciidamada Mareykanka ka tirsan. Waxay soo lugaysanayaan buurahan aadka u dhaadheer iyo rafaadkan. Waxa ku yaala jirkooda dhaawacyo. Waxay ku soo xireen godkan kadibna dusha ayay kaga xireen alwaaxyo adag si aysan uga baxsan halkan. Sam waxa uu ka fiirinayaa daroolka wuxuuna arkayaa sawirka gabadhiisii yarayd oo ay ku ciyaarayaan ciidamada Talibanku. Aad ayuu u murugoonayaa. Tom waxa uu dhex jiifaa gurigii Sam. Gabadhii adeerka u ahaa ayaa hurdada ka kicinaysa waxayna ku leedahay cunto fiican ayaa ku diyaariyay ka kac. Talaagada ayuu tagay ilaa uu caanihii cabo. Grace ayaa soo degaysa waxayna arkaysaa in Tom weli uu guriga dhex joogo. Sam waxa uu daroolkan ka fiirinayaa ciidamada Talibanka waxa uuna qiimeyn ku sameynayaa bal inuu ka baxsan karo godkan lagu xiray. Hal mar ayuu si kadisa u arkayaa diyaaradda helicopter-ta ah ee dul maraysa waana ciidamada Mareykanka. Sam wuxuu isku dayayaa inuu godkii jabiyo laakiin qoriga ka haya afka looga soo gelinaya waxaana leeyahay mar dambe haddaad soo riixdaan labadiinuba waa dhimanaysaan. Ninkan Talibanka ayaa kor waxa uu ka saarayaa dhagax aad u weyn godkii ay ku jireen. Tom ayaa waxa uu imaanayaa Grace waxa uuna ku leeyahay waa inaan jikada guriga iska bedelnaa. Waxa uuna keenayaa labada nin ee injineerada ah waana saaxiibadii waxa uu ku leeyahay jiko qurux badan noo dhisa. Halka Tom uu ku jiro godkan aadka u kulul mana oga inuu noolaan doono iyo inuu dhiman doono toonna. Ciidamadii Talibanka ayaa soo kaxaynaya waxayna soo saarayaan gaarigan labadii askari ciidamada Mareykanka ahaa. Kadibna waxay keenayaan buurahan cidlada ah. Gaari kale ayaa u imaanaya oo ay leeyihiin ciidamada Talibanku waxayna wadaan ninkan oo maxbuus ah loogana shakiyay in ciidamada Mareykanka uu jaajus u yahay. Kadibna waxaa la saarayaa maxkamad waxa lagu leeyahay waxa wadatay telefoon satellite leh. Ninka Afghanistanka baaskoolada ayaa madaxa laga saaray halkaas ayaana lagu dilay. Sam aad ayuu naxsan yahay ninkan ayaa soo fiirinaya waxa uuna ku leeyahay adiga ayaa ku xigi doona. Mid ka mid ah shaqaalihii dhisayay jikada ayaa waxa ku daatay rinji. Kadibna Grace ayaa waxay ku tiri waxaan ku keenayaa dhar isiisu. Waxay gashay gurigii waxayna baaraysaa armaajada ninkeedii oo dhar badan ay ku jiraan. Way ku dul fakaraysaa waxayna aaminsan tahay in ninkeedii uu dhintay. Dharkii ayay soo aruurinaysaa waxayna u keenaysaa ninkii jikada sameynayay. Waxayna ku leedahay ka xulo dharka nooca u baahan tahay. Tom waa uu yaaban yahay waana uu eegayaa. Sam waxa halkan lagu sameeyay ciqaab aad u daran. Kadibna ninkan ayaa waxa uu oranayaa waa in aad loo ciqaabaa labadan askari ee ciidamada Mareykanka ah. Sam waxa lagu celinayaa godkii halka saaxiibkii dharkii oo dhan laga bixiyay kadibna dhulka lagu xirxiray ilaa mindi aad u afaysan gacmihii oo dhan looga jarjaray. Sam waa uu naxsan yahay ciqaabta saaxiibkii uu marayo waxayna ka duubayaan muuqaalo. Sam walaalkii waxa uu isaga jiraa farxad waxa uuna dhameeyay jikadii. Grace ayaa guriga imaanaysa waxayna arkaysaa sabrayskan ilaa ay aragtay jiko aad u qurux badan. Waa ay farxayaan dhammaantood. Sam aabihii iyo xaaskiisii iyo carruurtiisii dhammaantood waxay ku jiraan farxad waxayna iska ilaaween in wiilkoodii uu dhintay. Maalinimadii xigtay Tom waxa uu ciyaarsiinayaa carruurtii adeerka u ahaa waxaanu la qaadanayaa jawi farxadeed. Kadibna waxa uu keenayaa meeshan barafka ah way ku ciyaarayaan dhammaantood waxay imaanayaan gurigii. Kadibna waxay qaadanayaan jawi farxadeed way isku soo dhawaanayaan. Grace-na waxay aad u jeclaatay maadaama uu shaqada guriga la qaybsaday. Carruurtiina ay aad ugu faraxsan yihiin wayna iska ilowday ninkeedii. Tomna waxa uu khiyaanayaa walaalkiis dib aan ugu laabana Afghanistan.
Sam waxaa la keenay meeshan cidlada ah isaga iyo saaxiibkii. Maalin kastana waxaa la marsiyaa ciqaab aad u daran waxaana laga duubaa muuqaallo. Wiilkan yar ayaa budkan ka soo qaadaya askarigan Daalibaanka kadibna waxa uu dhibayaa Sam waxa uu ku leeyahay waa inaad saaxiibkaa qaraacdaa. Sam waa uu diidayaa saaxiibka ayaa wuxuu qoranayaa dhimale iyo qaraac. Sam waa uu diidayaa inuu saaxiibkii qaraaco waxaana tuurayaa budkii ilaa baaskoolad lagu qabtay laguna yiri waa lagu dilayaa. Saaxiibku waa uu ooyayaa ilaa markii dambe Sam uu saaxiibkii dilay budkana uu si xun ugu qaraacay. Laakiin hal mar waxaa bilaabanaya weerar dhammaan ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afghanistan ayaa kasoo weeraraya afarta jiho waxa ay nala beegsanayaan duqeyn aad u daran. Askarigan ayaa la dilayaa wuxuuna kusoo dhacayaa godkii uu Sam ku jiray dhammaantood way kala cararayaan. Ciidamadii Mareykankana waxa ay qabsadeen saldhiggii Samna waa uu badbaaday. Sam xaaskiisa ayaa telefoon usoo dhacaya telefoonka ayay qabanaysaa waxaana loo sheegayaa in ninkeedii uu caafimaad qabo lagana soo furtay cadowga aad ay isugu naxay. Tom ayaa u imaanaya waxayna u sheegaysaa in walaalkii Sam uu caafimaad qabo lagana soo badbaadiyay cadowgii. Aeroboortka ayay tegayaan waxaana timi diyaaradii uu saarnaa Sam. Dhammaantood way soo dhaweynayaan aad ayay u naxsan tahay Grace kumana faraxsanaa soo laabashada ninkeedii. Sam diyaaradii ayuu kasoo degayaa waxa uuna habsiinayaa carruurtiisii iyo xaaskiisii oo halkan ku sugayay. Sam waxa uu imaanayaa aabihii aad ayuu ugu faraxsan yahay in wiilkiisii dib ugu soo laabtay. Maalintii xigtay Sam waxa uu imaanayaa halkan waana meesha uu markasta ku ciyaarsiiyo carruurta uu adeerka u yahay Tom. xaaskiisii aad u faraxsan ayuu arkayaa iyo carruurtii aad u faraxsan. Sam waxa galaya shaki ah in xaaskiisii iyo ninkan ay wada seexdeen waxa uuna ku jiraa baaritaanka xaaladaas. Guriga ayuu imaanayaa mar kale waxa uuna fiirfiirinayaa bal in wuxuuna cadeyna uu helo. Xaaskiisina waa uu ka shaki qabaa. Grace waxay aragtay in dabeecadda ninkeedii ay isbedeshay. Qolka ayay ugu soo galaysaa waxayna arkaysaa isagoo madaxa haysta way u imaanaysaa waxayna ku leedahay Stage aad ayaa ugu faraxsanahay inaad dib noogu soo laabatay. Laakiin Sam maaha mid waxa ku qanacsan iyadoo hadalkii wada ayuu ka kacayaa waana iskaga tagayaa. Maalinnimadii xigtay Sam waxa uu arkayaa gabadhiisii yarayd laabta ayuu gelinayaa waxauna arkayaa in carruurtiisii aysan farxad u muujinayn waxna ay isbedeleen. Habeennimadii xigtay waxa la isugu yimi casho dhammaan family-gii waa isku yimaadeen waxayna ku cunteynayaan miiskan. Gabadhan aabaheed ayay indhaha u gubaysaa isna waa uu shakisan yahay ilaa uu markii dambe ku xanaaqay kuna yiri maxaad iga fiirinaysaa. Way qilinaysaa waxay leedahay kuma rabno guriga nooga bax adeerkan ayaan rabnaa waxa uuna la seexdaa hooyadeen isaga ayaa noo ah aabe. Sirtii waa ay fashilantay. Samna waxa uu ogaaday xaqiiqada. Jikadii uu dhisay walaalkii ayuu imaanayaa dhammaanteedna waa uu jajabinayaa waxa uuna ku qilinayaa xaaskiisii waxa uu ku leeyahay nolosha ayaa ciriiri gu gelisay waana ay khiyaantay. Sam ayaa hal mar imaanaya waxaana ku leeyahay Stage walaalkii ayuu laabta gelinayaa. Sam isla markiiba baaskoolada la soo baxaya waxaana dhunta kaga qabanaya walaalkii isagoo ku leh waxaad la wareegtay gurigaygii iyo carruurtaydii laakiin ma dilayo. Sam ilbaabka ayuu ka soo baxay booliskii ayaa yimi kadibna waxay ku dhaheen baaskoolada dhulka dhig ilaa markii dambe Sam uu baaskooladii madaxa iska saaray iskuna dayay inuu isdilo laakiin booliskii ayaa ka qabanaya baaskooladii waa ayna xirayaan. Sam waxa uu fiirinayaa xaaladda walaalkii halka Grace ay aad u ooyeyso. Maalinnimadii xigtay xaaskiisa ayaa u imaanaysa waxaana ku leeyahay runta ii sheeg maxaad iga qarisay. Laakiin runta ayay u sheegaysaa waxayna ku leedahay inaad dhimatay ayaan ku moodayay kadibna waxaan la sameeyay xiriir walaalka. Laabta ayay isgelinayaan. Samna waa uu caafinayaa xaaskiisii iyo sidoo kale walaalkiisba. Daawadayaal adigan filimka daawanaya haddii ay kugu dhici lahayd arrintan oo kale maxaad samayn lahayd ma cafin lahayd xaaskaaga mise waa ka tegi lahayd. Wixii fariina noogu reeb qaybta hoose ee commentiga. Intaan iskaga imaan doono muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegi doonaa sidaas iyo nabadgelyo.